غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. اتل السطر وراء السطر، فالقرآن ربيع العمر. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب. أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سراب. أنزله ربنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن شاء الله تعالى ولا ليال سيدي ندوذينا كوغودا جيرني habeenkii caawa lixaad oo insha Allah taala aynu galayno darsi ama muhaadaro kamid ah mu'tamarkii ciwaankiisu ahaa wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu. caawa insha Allah darsigu ciwaankiisu waxa weeye manhajul qur'aanil kariim fi tahdhib an-nufus, oo ah manhajka ama sida qur'aanka kariimka ahi uu nafaha u sifayo oo u wanaajiyo, qaabku u daaweeyo oo u taskiyeeyo, nafaha uu hagaajiyo ayaynu galeynaa insha Allah taala. waxa soo jeedin doona akhuuna fadiilatu doctor Sheikh Axmed Xaaji Cabdiraxman insha Allah taala. ilaahay subhanahu wa taala waxaan ka rajeynayaa inuu sheekha abaal ka siiyo aakhirana miisaankiisa xasanaadka ugu daro, inagana inuu ina ka dhigo kuwii maqla kelmadda wanaagsan oo raaca insha Allah taala. kusoo dhawow sheekh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ولا ليال عنوانك محاضرة عاوة وعنوان بلارن أوردير oo aan la soo koobi karin
waxaan dhacay kitaabka kan qur-aankaahi waa kitaabu hidaaya wuxuu u yimid inuu nafta bini aadanka daaweeyo inuu islaaxiyo inuu ilaahay ku xiro inay noqoto naf saalixa qur-aanka muhiimadda uu lahaa taasaa ka mid ah mas'alada akhlaaqduna way guda weyn tahay oo meel kastay gelaysaa waqtiga hadda la joogo oo casriga hadda aynu ku nool nahay waa casri maadiyaad ah oo dadku aynan akhlaaqda wax weyn siin oo ihtimaam weyn aan la siin allaahumma akhlaaqda gasha xagga tijaarada iyo xagga kasbiga in wax la helo mooye yacni nafciyadii iyo hungurixunimadii ayaa bini aadanka ku badatay waxyaalihii akhlaaqda ahaa aad bay ugu yaraanayaan ayada laftigeeda waa mowduuc meesha ku jira mowduuca kaloo meesha ku jira waxa weeye saxwadatan islaamiga ah ama dacwadatan islaamiga ah oo runtii ku bilaabatay dacwo saxaysa qofka bini aadanka ah suluugiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa saxaysa waxaa moodaa arrinku hadda sidii inuunan ahayn oo waxa weeye waxa badan ay soo kordheen oo inxiraaf ah oo akhlaaqdii iyo wanaaggii iyo wixii lagu aqoon jiray dadka ducaadda ahi wax badan oo ka gadisan laftigeeda inay soo kordheen saa darteed marka mowduuca kani wuxuu geli karaa meelo tiro badan wuxuu yeelan karaa qaybo tiro badan laakiin insha allahu maadaama ay muxaadaradu kooban tahay oo hal saac oo kale tahay waxaynu insha allahu ku soo koobaynaa nuqaad asaasi ah waana ogtihiin oo mas'alada akhlaaqda bini aadanku qadiiman wa xadiian ihtimaam buu siiyey waxaad ogtihiin inay jiraan aragtiyo iyo nadariyaad kala duwan oo akhlaaqda ka hadlaysa maxaa dhacay bini aadanku inuu sacaado helo oo liibaan helo oo istiqraar helo oo helo inshiraax sadr ayaa loo dan leeyahay xaggee ka helayaa marka aragtiyaal isku dayay baa jira waxaa jira aflaatoon madiina uu subila madiinat aflaatoon oo iska miaali ah akhlaaqiyaadka waa laga hadlay falaasifaduna waa ka hadleen laakiin akhlaaqda sida loo saxo ilaahay ayaa caliim ku ah isaga ayaa loo daynayaa isagaa bini aadankan suubsaday isagaa yaqaan sidii loo hagaajin lahaa waxyaalaha wanaagsan oo bini aadanka dhaqanka wanaagsan oo la arko oo muslim iyo gaalo lagu arkana waa miiraathi nubuwa waa wax laga dhaxlay ambiyadii waa wax waxyiga laga dhaxlay haddaad aragtaan cadaaladda in la jecel yahay zinada in la necab yahay in runta la jecel yahay arrinka noocaasoo bini aadanku uu ka siman yahay waxa weeye waa dhaxalkii ambiyada ilaahay laga dhaxlay wey walidaalika xadiis waxaa jira nebigu uu yidhi ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اluulaa waxyaalihi ay ka dhaxleen waxaa ka mida idaa lam tastaxi fasnac maa shi't haddaadan xishoonayn waxa rabta suubi marka waxa weeye xishoodka iyo wanaagga iyo cadaaladda iyo in bini aadanku arrinkaasi ay ka wada siman yihiin oo ay noqoto akhlaaq mushtarag ah ma ahan maskax in laga helay ee waxa weeye waa dhaxal laga dhaxlay ambiyadii ilaahay kitaabkan qur-aanka ah waa kitaabkii bedelay kownka kan iyo caalamka kan markii la soo saaray wuxuu ku suubiyey inqilaab wuxuu ku suubiyey isbeddelkaas uu ku suubiyey waxa weeye jawharkiisa wuxuu ka daaweynahayey waxyaalaha cilmiga iyo macrifada ku saabsan oo ah ilaahay ambiyadiisa haybiyaadka waxaas waa waxyaalo cilmi ku salaysan waxa kalena wax suluug ku salaysan ka daaweynay bini aadamka isagaa bedelay dadkaad og tihiin oo khamrada cabbayey oo zinaysanayey oo isdilayey
oo isleynayay oo caruurta yaryarka ah oo gabdhaha oo ay dhaleen duugahayay oo ninku ka xoog badan yahay uu suuraba yeelayay dadkii wixii ka dhigay weeye dad isjecel mujtamac mutaraaxim ah mujtamac musaalim ah mujtamac isjecel qur-aankan ilaahay ayaa ka dhigay saa darteed marka kitaabka kani waa kitaabu hidaayatin wa raxma yacni hanuun iyo naxariis ayaa ilaahay la soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahay lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina munfakiina xatى taأtiyahum اlbayina rasuulu min allahi yatluu صuxufa muطahara fiiha kutub qayima yacni kama ay zuulin dadkii gaalada ahaa oo ahli kitaabka ahaa iyo mushrikiinta ahaa munfakiina kuwa ka fakanaya ama kuwa aan arrinkaasi ka baxsanaya oo inay khaldan yihiin oo ay baadi ku sugan yihiin ilaa ay uga timaado bayinadu xujadu rasuulu min allah ka bedel xujadaasi waa rasuulka ilaahay oo akhrinahaya suxuf mutahar ah oo la taahiriyey fiiha kutubun qayima kutub qiimo leh oo macno leh oo wanaagsan ayaa ku sugan suxuftaas marka manhajkaasaa lagu bedelay dadku waa xumaayeen fii dalaalin mubiinin bay ku jireen qur-aankaas ayaa bedelay ilaahay wuxuu leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushraa lilmuslimiin qur-aanka kan baan kugu soo dejinnay tibyaanan likulli shay isagoo shay kasta caddaynaya in caam laga dhiga ayaa fiican qaar baa waxayaan xalaasha iyo xaaraanta laakiin in la camimo ayaa culummada qaarkeed ku tagtay wahuwa alasaxu waalarjax iyo wahudan hanuun iyo waraxmatan naxariis iyo wabushraa lilmuslimiin uu yahay ayaa qur-aankan loo soo dejiyey ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum washifaaءun lima fi الsuduur wahudan waraxmatun lilmu'miniin waxaa idiin timid mawcida in laydin wacdinayo oo wax laydin tusaalaynayo wax laydiin sheegayo iyo washifaaءun lima fi الsuduur qur-aanka kan waxyaalaha bini aadanka ku jira oo shubahaad ah oo shaki ah ayuu daawo u yahay oo daawo xisiya weeye waa daawo macnawi ah labadaba waa yahay iyo wahudan waraxmatan lilmu'miniin inuu u yahay hanuun iyo raxmad dadka mu'miniinta ah ilaahay wuxuu yidhi qad jaa'akum min allahi nuurun wakitaabun mubiin yahdii bihi allahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aulumaati ila annuuri biidnihi wayahdiihim ila siraatin mustaqiim qur-aanka kan waxa weeye waa kitaabkaas cad oo ilaahay qofkii uu la doono wanaag uu ku toosinahayo jidka saxa ah oo dadka kaga soo saarahayo mugdiyaalka oo ugu soo saarahayo nuurka oo uu jidka toosan ku hanuuninahayo kitaabkaas wey hada bayaanun linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin walaqad jaa'ahum min rabbihim اlhudaa waxaasoo dhan waxay ku tusinahayaan qur-aanka kan inuu hanuun iyo raxmad iyo caafimaad laga caafimaad yahay shaki iyo shubuhaad iyo wax alla wixii wasaawis ah inuu la yimid wanunazilu min alqur'ani ma huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniina walaa yaziidu الظaalimiina ila khasaara qur-aanka kan waa shifo waa caafimaad macnawi ah iyo caafimaad xisi ah iyo raxmad waa qur-aan kariim ah ilaahay ku sheegay falaa uqsimu bimawaaqici الnujuum wainahu laqasamun low taclamuuna cadiim inahu laqur'aan kariim fii kitaabin maknuun laa yamasuhu ila almutahharuun qur-aanka kan waa kitaab kariim ah wey oo yani kitaab sharafi ku jirta wey laqad anzalnaa ilaykum wainahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun ma garatay yani sharaf buu idin yahay sharaf ayaa qur-aanka kani uu u yahay dadka mu'miniinta ah oo dhan ayuu u yahay waa qur'aan
muhaymin ah oo wixii ka horeeyay kutubtii ka horeeyay oo dhan markhaati u ah oo isagu qaadi u ah وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قرأت قرآن كاني ومهيمن بؤيهي وحلا وحي كوريي أردن أيو وحؤيهي وحكمنا إياه مركا كتاب كاس وإلهي آد وشيغي داوديسا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء قرآن كاس وقرآن كمركي لما قلوه لخشوعها أيوه وقشعري رضا أي قوانا يستغفك بني آدم كأهو نول وحيقة أي قوانا يسوه كتاب كاسوي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وحدتك أهنونية تي وناكسنين يعني جدك توصن نول بابا هنقط حق معتقدك هنقط حق عباداتك هنقط حق معاملاتك هنقط حق أخلاق كتابك كان يهدي للتي هي أقوم تي وناكسنين أو توصنين أيودتك كهنونية قرآنك كان حديب بوره لقص عسين لها قرآن لقص عسيه بورها دو جري لها وقرآنك كان ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى يعني هدو جيره قرآن بورها لقو دقاتيه أما ملك لقو جيحه أما وحيد انت لقو لها الله كانوا أهان لها قرآن كانوا أهان لها يعني هذا الكتاب كتاب كان أي أهان لها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه القرآن كان الوسود جن لها جمادات كبورها وأي قرنيان ويخشوع لهاين وين كلا دادن لهاين مركا فما بال الآدمي ذاتك آدمي قاهي محي لك لدادن لايهين محي خشوع لايهين محي القرآن كان وهنوني لايهين وقانسمي لايهين وهرين عجائب هو قرآن كان شأني قاسوا ليه وقرآن كي تي مقلين جنه أي راهدين كتاب ياب لبان مقلين قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به يعني القرآن ذاتك كهنوننا هي تلك التوصل وهنونك أيان مقلي وانفهمين بإليه مركا قرآن كان وقرآن كي بدلي ummadii aad ogeydeen ummad kasta oo isku dhiibta oo amarkiisa qaadatana bedelaya way ma garatay sababtu waxa weeye waa ilaahay wuxuu ugu talagalay in koonkan kan uu suubiyay warqadii la soo raaciyay way warqadii la soo raaciyay daawada markii la isticmaalayo soo warqad lama soo raaciyo warqadaas sida loo isticmaalo soo kuma qorna hadii si kale loo isticmaalo miyay sax noqonaysaa waa maya سيدي إلهي رالك كاها ومثال يروي وتشبيه سيدي إلهي رالك كاها إلهي وحو ربي وحو دوني وحو ديدي يا سيدي وحلو علاج لها انت وقرآن كان أيكو أكتر أيكو أنت نبينا واشيك صلوات الله وسلامه عليه وحو يا أيها الناس فإنما أنا بشر بن آدم بانا يوشك أن يأتي رسول ربي waxaa dhici karta rasuulka rabbi inuu yimaado oo malaka mawdkii oo aan ajiibo wa ana taarikum fiikum thaqalayn laba culus baan idinkaga tegay awaluhuma kitaabullah fiihi alhuda wannuur kitaabka ilaahay oo hanuun iyo iftiin man istamsaka bihi wa akhada bihi kana cala alhuda qofkii ku dhaga oo qabsada hanuun ayuu ku sugan yahay waman akhta'ahu dal qofkii ka leexda oo gafana waa baadiyoobaya iyo wa ahlu bayti baydkii dadkii nabiga qaraabadiisa ahaa uu ka tegay udhakirukum allaha fi ahli bayti udhakirukum allaha fi ahli bayti thalathan ayaa nabigu yiri salawaatullahi wa salaamu alayh yani waxaan idinkaga tegay kitaab hadaad iska laalaadisaan oo qabsataan aynan baadiyoobayn hadith saxiix
waxaa nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayka bitilaawati alqur'aan fainahu nuurun laka fi اlardi wadukhrun laka fi الsamaa iftiin buu adduunka kuu yahay xaggana kayd buu kuu yahay oo isaga aakhira kaaga horrey ma garatay nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi alqur'aanu shaaficun mushafac qur-aanku waa mid dadka u shafeeca wey wamaaxilun musadiq waa qofka dadka u dooda oo doodiisana la qaato wey man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna qofkii hortiisa dhiga jannada ayuu u kaxaynayaa waman jacalahu khalfahu saaqahu ila annaar qofkii laakiin diida dee naartu gelaya qur-aanka kan waa qur-aankii dadkii rumeeyey kor u soo qaaday oo ka dhigay saada iyo culummo iyo dad la yaqaan dadkii diidayna hoos geeyey waa qur-aanka kan xadiiskii cumar uu leeyahay amaa inii samictu nabiyakum sala allahu calayhi wasalama yaquul ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin muslim baa wariyey yacni nebigan waxaan maqlay buu leeyahay isagoo leh qur-aankan dad buu kor geynaya waa qoloma waa qolada rumaysa qolana hoos buu geynayaa waa qolada diidda wey qur-aankan shanigaasuu leeyahay waa kitaabkaas inuu wax bedelaba loo soo diray akhlaaqduna juz bay ka tahay ama qayb bay ka tahay waxyaalaha uu bedelayo ama waxyaalaha uu hagaajinayo horta akhlaaq maxaa la yidhaahdaa akhlaaq khilqada iyo khuluqdu isku maadday ka timaadaa kha iyo laam iyo qaaf waa isku macno asalkoodu waa isku mid abuurista bini aadamka la abuuray iyo khilqadda iyo hay-adda uu leeyahay khalqi baa la yidhaahdaa khuluqda iyo sajiyada iyo dabiicada uu leeyahayna khuluq baa la yidhaahdaa marka khuluqduna ma ahan qofku wax uu suubiya ma ahan laakiin waa wax caada u oo dhaqan u ah wey yacni shay inaad maanta socotid oo meel gaartid akhlaaq kuu noqon mayso akhlaaq waxaa la yidhaahdaa wixii dabiicad kuu noqda oo dhaqan kuu noqda huwa maa ya'hudu bihi اlinsaanu nafsahu min aladabi wixii uu naftiisa qofku ku carbiyo ayaa khuluq la yidhaahdaa liannahu yasiiru kalkhilqati fiih wax ku abuuran oo dhaqan ah oo u qaayibay ayay noqonaysa akhlaaqdaas bini aadamka uu leeyahay qof walba leeyahay labay u qaybsantaa wax jibilli ahoo fitri ah oo abiici ah oo ilaahay dadka ku abuuray dadka qaarkood deganaanshaha xasiloonida kaadsiinyaha runta qaar baa ilaahay saa u abuuray oo dabci wuxuu siiyey yaab leh qaarna waa muktasab oo waxa weeye qofku inuu kasbado oo ku dadaalo oo isku layliyo oo isku carbiyo ayaa loo baahan yahay kaas jibiliga ah waxaa u daliila xadiidkii wafdi cabdilqays waxaa la socday ninkaasi raggii saaxiibadiisahaa waa uu ka dib dhacay ritigiisii buu xirtay waa dabraday kadib dhar fiican buu qaatay nebiguu u tegey ashaj cabdilqays baa la odhan jiray yani show nin daqar leh ayuu ahaa ninkaas nebigu wuxuu yidhi laba khislo baad leedahay labadaa khislana waxa weeye alxilmu waalanaa yani nin xaliimahoo iyo nin kaadsinya leh ayuu ahaa dulqaad leh oo aan degdegayn ayuu ahaa markaasuu yidhi ma wax ilaahay igu abuuray baa wax ilahay kugu abuuray wey ilaahay wuxuu igu abuuray oo saasoo kale alxamdulilahi buu ilaahay waa uga mahadinaya arrinkaasoo kale marka ninkaasi deganaanshahaas uu dadkaa dheeraa kama cilmi badnayn diin badan ma baran oo iyaga ugama horraynin laakiin waa ilaahay dhaqan uu siiyey oo qaayibay ayuu ahaa alxilm waalanaa hind binti cutba markii laga sheekeeyey zinada waxay tidhi wahal tazni alxora naagta xorada ahoo kariimada ahi oo qoys ka dhalatay miyay zinaysataa way la yaaban tahay yacni naftaydu iskuma quuri karo wey yani dabcigaas waa dabci cifada ah oo alla ku abuuray
sidoo kale abubakar khamre ma cabbi jirin jaahiliyadii muru'adaasi waa muru'a ilaahay ku abuuray ma garatay khilqa ilaahay siiyey oo dabci u noqotay oo khuluq u noqotay ayay noqotay nabiguna wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi markuu ka sheekaynahayey la weydiiyey dadka yaa ugu fiican annaasu macaadin dadku waa macaadin khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaami idaa fuquhu yacni dadku say u kala wanaagsanaayeen markoodii hore ayay u kala wanaagsanaanayaan dabci waxaa jira ilaahay qofka uu abuuray oo guryaha qaarkood ay iska leeyihiin yacni tarbiyada ay soo qaateen ama madax bay ahaan jireen ama dad bay xukumi jireen amaba waxay ahaayeen dad si un loo xurmeeyo yacni dhaqankaasi waa la qaayibaa carruurta waa lagu tarbiyeeyaa kaabiran can kaabir waa la iska dhaxlaa dhaqan noocaasoo kale oo jibilli oo ilaahay dadka siiyey ayaa jira oo ku yimaada arrinka noocaasoo kale ah oo dhaxaltooyada ah ku yimaada arrinka kalena waa arrin muktasabahoo haddee dadaal ayaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu yidhi waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana yani mujaahadadu waa nooc takalufaa ku jira qofku inuu wixii isku dayayo oo isku khasbayo hadday kaa timaado arrinkaasoo aad tahay saadiqi niya ilaahay waa kuu tamimaya inta kale lanahdiyannahum subulana inta kale waa lagu waafajinin haddaad adigu juhdiga aad la timid iyo daaqadii iyo wuscigaagii aad la timid inta kalena ilaahay waa kuu kamilaya waxaa ka mid ah xadiiskii abudardaa inama alcilmu biاltacallumi wاlxilmu biاltaxallumi waman yataxara alkhayra yucطah waman yatawaqa الshara yuuqah yacni cilmigu waa barasho qofku waxa weeye ma dhasho isagoo caalima laakiin wasbaraa waa khuluq la kasbado sidoo kale in qofku uu yahay qof dulqaad leh waa iska yeeli karaa waa ku tababaran karaa qofkii khayrka raaraadiya waa la siiyaa qofkii sharka iska teeda waa laga teedaa waa laga leexiyaa arrinkaasi marka waxay ku tusinaysaa in la kasbado aharkaasi waxaa wariyey khatiib albaqhdaadi fii taariikhihi bisanadin xasan sheekh alalbanina fi silsilati saxiixa ayuu ku soo arooriyey waxaa ka mid a xadiiska saxiixa ahaa waman yastagni yugnihu اllah waman yatacafaf yucifuhu اllah waman yatasabar yusabirhu اllah qofkii hani iska dhiga oo ilaahay ku kalsoonaado oo wixii uu haysta qanaaca ilaahay ku siiyo ilaahay waa deeqaya qanaacu siinaya waa kanzi qanaacadu qofkii cifo raadiya iyo inuu maaragtay dhowrsanaado ilaahay waa dhowraya qofkii sabir raadiya ilaahay waa sabir siinaya ma garatay arrinkaasina waxay ku tusinaysaa akhlaaqda in la kasban karo oo lagu dadaali karo bini aadanka waad ogtihiin oo nadariyaadka akhlaaqda qaarba meel bay ka fiiriyaan qaar waxay leeyihin bini aadanka waxaa xukuma calooshiisa sida aragtida markizimka iyo maadiya aljadaliya qaar waxay leeyihiin waxaa xukuma bini aadanka waxa loo yaqaano jinsiga oo qaraa'istiisa ayaa xukunta sida freud oo kale oo nadariya taxliili nafsi uu leeyahay bini aadanku sida uu xataa hooyadii markuu nuugayo daafic jinsi ah ayaa ku jira qaarna waxay leeyihin nadariyada ijtimaaciya bini aadanka dhaqanka waxaa siiya waa bii'ada iyo mujtamaca uu joogo oo mujtamacaasi waxa ay uu diidan yahay waa diidayaa waxa ay rabaanna waa qaayibayaa oo nadariya ijtimaaciya oo dorkaym iyo wixii la mid ah aragtiyooyinka reer galbeedka oo kulligood aan sax ahayn qofba in ka fiiriyey nimanka saddexdii ninoo indhaha la ayadoo loo diray maroodiga la mid ah yacni bini aadanka wuxuu leeyahay khaasiye xayawaani ah laakiin khaasiye kaloo wuxuu leeyahay ruux ilaahiyaa ku jirta yani marka bini aadanka laguma fasiri karo si bahiimiya looma maaragtay cilaajin karo waxa weeye waa ka wen yahay waxaa ku jirta khasladaasaa ku jirta ruuxana ilaahay buu xambaarsan yahay ilaahay marka bini aadanka waa uu sheegay dhaqankiisa oo waa uu ka warramay yacni innahu kaana daluuman jahuulan bini aadanku inuu dulmi badano yahay oo jaahil yahay
oo wuxuu hadiiba la kudo ilaahay waa sheegay maxaan amaanadii markii laga sheekeeyay loo bandhigay ala samaawaati wal ardi wal jibaal oo ay diideen ayuu soo xambaaray markaas ali innahu kana zaluman jahula khilqadaas waa leeyahay dhaqankaas wadhulmu min shiyam an-nufus fa in tajid dha'ifatin fali'illatin la yadhlimu binaanku dhaqankiisu inuu wax dulmiyo uu jecel yahay hada aragtid nin wax dulmin waayay waxa dhici karta illa jirta ama illaas diini ha ahaato ama taageeriba ha ahaate binaanku waa degdeg badan yahay wa kana al-insanu ajula magarat degdeg ba ku jira khuliqa al-insanu min ajal degdeg baa laga abuuray waxa kutubta tafaasiirtu markay ka hadlayaan ay yiraahdaan aadam markii la khalqinayay oo nafkhigii lagu abuuray maxaan ku iraahdaa ruuxdii isagoo aan wali lagu hagaarin buu hinqaday oo inuu ordo isku dayay ma garatay waa war aan hadda sanad loo hayn laakiin bini'aadanku waa degdeg badan yahay bini'aadanku xaalad mucayana kuma deganaado marba xaalad buu saarnaanaya إن الإنسان خلق هلوعا هلوعا سمحويه إذا مسه الشر جزوعا هدي دباتا كل عضو ننكاسي وأرقق إيو وحا كجر مقعيس وإذا مسه الخير منوعا هدو خير هلنا كيبا معهن كي شريعة واحترطي وإحسان فالشي وأدهقاتي سي ما بعهم با إركاسو سقينية كيبا معهن يعني هديبا وهي المامية بن آدم بنانك وادود بدنياي او قيل بدنياي امور بدنياي كان الانسان اكثر شيء جدلا مقرت نبي مركو فاطمه يا علي كعيي او اي يراهدين الهي هدو مارتي نسو كعي وسو كعي لهين wuxuu ka tagay soo boodiisa garaacay uu leeyahay wa kana al-insanu akthara shay'in jadala binaanku waa muran badan yahay yani in uu sallimo xaalad uma badna inta badan yani waa dood buu ka keenaya dhaqankaas ilaahay waa ku ogyahay bini aadanka sifaat tira badan ayuu leeyahay oo bahiimi ah sifaat tira badan oo fiicanna waa uu leeyahay akhlaaqda waxa uu ah waxay kala leeyihiin rakaa'iz usus qawaacid bay kala leeyihiin ibn qayyim oo runtii aad iyo aad uga hadla ah ayaa wuxuu sheegay xusnul khuluq inuu afar rukni leeyahay afarta rukni wuxuu ku sheegay as-sabr sabarka iyo al-iffa afifnimada iyo ash-shujaa'a geesinimada iyo al-adl adilnimada afartaas ayaa rukni u ah buu inta kalena way soo hoosgalaysaa sabirku wuxuu keenayaa buu yiri inuu suubiyo arada inuu qariyo inuu dadka dhibta ka daayo inuu dul qaato inuu kaadsiye la yimaado inuu rafiiq noqdo rifqi la yimaado in ajalada iyo tayshka uu ka baxo ifaduna waxay keenaysaa inuu ka fogaado waxyaalaha xunxun iyo qubxiga ah ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee waxay ku xambaaraysaa inuu xishoodo waxay u diidaysaa waxyaalaha fuxshiga ah iyo bakhiilnimada iyo beenta iyo xanta iyo isku dirka geesinimaduna waxay ku xambaaraysaa cizzati nafs qofku inuu aziiz yahay iyo inuu akhlaaqda wanaagsan higsado waxa xunna uu naco ayay ku keenaysaa inuu bixiyo waxyaalaha uu jecel yahay bay ku xambaaraysaa sida deeqsinimada oo kale wama ila dalik waxay tusinaysaa inuu isxakameeyo laysa shadiidu bisur'a qofku inuu wax lagdo ما هنجيس نمدو إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب على إنه حجين كره أي كينيسا إن أعد داره قفك خصم جيسا أي كو حنباريسا عدل لقونا وماشا الله انتبع وماشا اسكود اللي تريسا أخلاق دا يعني أخلاق دا قارنا والدتا قارنا وفي عنتها ولكن دنك كلي جرتا ماشا واحد احد حادنيسا وعدالة داسو وقفك إنه ديقسي هي إنه مودل يهي يعني واحد جرت قف وحبا عن رياضانين oo xul mubaddir ah meel dhexe oo deeqsinimo baa la istaaji geesinimadu waxay u dhaxaysaa qofku inuu yahay meel iska tuur qar iska tuur iyo inuu yahay qof fulay ah ayay u dhaxaysaa
وميل دحق وهكذا عدالته مركب waxay keenaysaa dhexdhexaadnimadaas ayay keenaysaa afartaas ayuu ku ururiyay waxyaalaha wanaaga ah waxyaalaha xunxunna waxay afar rukni bay leeyihiin buu yiri jahli iyo dhulmi iyo ashahwa wal ghadab afartaas oo asal ah akhlaaqda xunxun ayuu yiri diinka kan ama quraanka kan wuxuu u yimid akhlaaqda inuu hagaajiyo oo saxo ayuu u yimid سين وشيء عقيدة إنه توسيه عباداتك إلهي ربا إنه شيءه أخلاق إنه هجاجيه إلهي وأمنا شاكتي ومضة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم إنه طهيرها يضدك كان وكالطهيرها يوحيالها حنحن أي إلهي أمنا شاكتي هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني إن طهيرها يو أخلاق كطهيرها يو أي إلى هاي الشيء قرآنك وحو أماني قفك إن استهيره قد أفلح من تزكى حليماني قفك استهيره قد أفلح من زكاها نفتا قفك طهيره أي الإيمان إسكاله وقد خاب من دساها قفكي عن طهيرين أو حميينا دي قفكاسي وهوكس هوك باكو دعي أخلاق راس نبي وحا لغو تلمامي وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيم أهبط لا مفسرين تحكوا الشيء أي على دين عظيم إلا دينتي يا خلق دي وأسكمده قفك دو دين في عينه وأخلاق في عينه دينتا تنا وحي يريسا أخلاق ذا وناكسن أي يريسا وحين ديدنتها هي أخلاق ذا حن أي ديدنتها هذا قرآنك ملك سمركا تكتيد وقرآنك أخني سيد آياتها كسو أرولي صبرك وحالي هذا وكبديه سقاشا موضع وكبديه آياتها إحسانك وقفك إنه إحسان الله فلاه وحالي يري إلى لحن يتضرب موضع أي كسو أرولي آيات كشكينا هي عدلك يا صدقك يا عفوك يا ديقسن ماذا يا عفافك واترك بطع آد يا آد أي أبنيه وحا قرانك أتكو أركيسا آيات تربضا أو قفك أخلاقنا وناكسن لقالها الله يو وقولوا للناس حسنا تتك وناكسن لهايا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن تتكو وحفي عن هاي راهدين ولا تنسوا الفضل بينكم وراهي المؤمنين وحي خير يدين دحيي هذا كله تجيسان حتى ما هن إن حسن ويدان وحي وناقها إيه صبرك فصبر جميل فاصفح السفح الجميل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه أخلاق ذا ترى ضبطا ولو حركة سام مركب قرآن كشكين وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تري آياتها كسو أروري وصفات كذلك المؤمنين الله شيء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آياتها سورة الفرقان كسو أروري ترى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين آياتها كسو أرور وهكذا يعني قرآنك آياتها تربني وضع وحكاها ليس أخلاق ناس إلى الإيمان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ما قرأت فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني هذه قفك وحال ربا إنه مركز وحا وناقا دورته وأخلاق في عن دورته أي قرآنك ويريا نبي وحكوت كوكوبي بعثديسي يصدركي سيبا إنه أخلاق ناس وناسا كمله وتاميله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ساسا بالله يسو صاري أخلاق ذا وناسا إن تاميله وفي رواية مكارم الأخلاق مقرت
biriga oo ah jimaacu lkhayr nebigu wuxuu ku fasiray albiru xusnu lkhuluq biriguba waa xusni lkhuluq wuxuu ku ducaysan jiray allahuma hdinii liaxsani alakhlaaq laa yahdii liaxsaniha ilaa anta ilahu igu hanuuni akhlaaqda wanaagsan adigu unbaa dadka ku hanuunin kara allaahumma kamaa axsanta khalqii faaxsin khuluqii saasuu ku ducaysan jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ilaahu saad u hagaajisay khilqadayda oo bini aadan sawi iga dhigtay akhlaaqdayda u hagaaji ma garatay markii la weydiiyey dadka waxay jannada ku galaan maxaa ugu badan wuxuu yidhi taqwa allaahi iyo wa xusnu lkhuluq taqwada ilaahay iyo akhlaaqda wanaagsan ayay ku gelayaan ina min akmali lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa dadka waxaa ugu iimaan fiican dadka ugu akhlaaq wanaagsan qofku wuxuu ku gaarahayaa xusnu lkhuluq darajat asaa'imi alqaa'im kullu intaasoo dhan waxay ku tusinaysaa yacni in akhlaaqdu ay boos yaab leh ka degan tahay oo diintu ay aad uga hadashay oo la odhan karo tashriica islaamiga ah oo dhan wuxuu ku salaysan yahay nadariya akhlaaqiya ayuu ku salaysan yahay cibaadaadka waxaa loola gol leeyahay inay akhlaaqda wanaajiso cibaadadu afcaashan la subinaya keli ah lama rabo afcaashan waa ka mid laakiin waxbaa loola gelayo amaro ah amaradaasina waa xusnu khuluq bal u fiirsada qur-aanka salaadda markii laga sheekeeyey waxa lihi waaqim الsalaa ina الsalaata tanha can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaada tani waa inay kaa reebtaa waxaa xun inay kaa reebta wey markaasay salaada amaradeedii iyo wixii loola gol lahaa iyo natiijadii laga rabay markaasaa la helaya fiiri soomkii kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba cala اladiina min qablikum lacallakum tattaquun danta laga leeyahay maxay tahay waa ataqwa cabsi ilaahay inaad ilahay ka cabsataa intaasaa lagaa rabaa markaad soomaysid zakadii khud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tusakiihim biha yacni zakadu tuhra xoolaha waxay u tahay iyo naftaba waxay u tahay yacni mayrid la mayrayo oo bukhligii lagaa mayrayo oo shuxigii lagaa mayrayo oo muudalnimadii lagaa mayrayo oo raxmad iyo wanaag aad la imaanaysid oo masaakiinta au naxariisanaysid ayay calaaqa la leedahay xajkii akhlaaq buu ku dhisan yahay alxaju ashhurun macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala fi اlxaj lama rabo xumaan oo dhan lama rabo marka xaj ku jirta fisqi iyo jidaal iyo waxa haweenka calaaqada la leh waxaas waa lagu diidan yahay waa lagu diidan yahay waa lagu tababaraya waa lagu laylinayaa cibaadaadkan laylis baa ku jira laylis ayaa ku jira hadda intaa keliya maahan ogaada mucaamalaadka laftigoodu waxay calaaqa la leeyihiin akhlaaq markii dalaaqa laga hadlahayay iyo soo celinta faidaa balagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw faariquuhunna bimacruuf waashhiduu daway cadlin minkum waaqiimuu shahaadata lilah dalikum yuucadu bihi man kana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir ma garatay yacni saasaa lagu waaninayaa ma garatay qofka saasoo kale ah waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja yani taqwadii ilahay markaas la socota yani qofka marka wax la amrahayo waxaa la xusuusinahayaa inuu muraaqab yahay in allaha bima tacmaluuna khabiir in allaha bima tacmaluuna basiir u fiirso aayadaha dalaaqa aayadaha kulli ku salaysan saasaa la leeyahay saas yacni mucaamalaadkii maaliga ah albayicaani bilkhiyaar labada qof wax kala gadanaysay khiyaar bay leeyihiin markaasaa la leeyahay fain sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihima hadday run sheegaan oo caddeeyaan oo qishka ka daayaan ilaahay waa u barakaynayaa beecoodii wain kadaba wakatama muxiqat barakatu baycihima yacni waa marka uu qofku maxaan ku dhaha attaajiru asaduuqu alamiin waa la ammaanay inuu maca nabiyiin yahay ma garata wahaakada
marka wax kasta waxay calaaqo la leeyihiin akhlaaq mucaamalo kasta oo qofka muslimka uu suubinayo aragtida akhlaaqiga ayaa la socota midda kale waad ogtihiin oo adduunka kan hadda la joogo waxaa xukuma qaanuun laakiin qaanuunku hadduu hurdo qofku suura buu yeeli karaa qaanuunku waa seexdaa muslimiinta ilaa ninka askariga iyo ninka booliska ah ayaa waardiyeeya laakiin qaanuunka ilaahiga ahi riqaabo daakhiliya jirta riqaabada daakhiliga ahi waa iimaanka ilaahay baa ku eeganaya oo ixsaankii oo la yidhi ixsaanku muxuu yahay an tacbud allah kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak maa yalfidu min qawlin ila ladayhi raqiibun catiid halkan malak baa kaa saaran wax kasta waa la qorayaa wax kasta waa lagaa qorayaa saa darteed riqaabadaas daatiga ah ayaa adiga ku xukunta kuma xukunto askarigii baa seexday askarigii baa halkaa aaday qaanuunku kuuma jeedo xaq kuu siin mayso inaad khalad ku dhacdid kuu siin mayso walidalik akhlaaqdaas islaamku waa akhlaaq calaaqa la leh caqiidadii oo aan ahayn mujarad damiirku wuxuu jecel yahay ama aan lahayn mujtamacaasaa raba waa ka duwan tahay akhlaaqda marka runtii waa kala duwan tahay akhlaaq fardiyaha jirta oo qofka laga rabo shakhsi ah akhlaaq waxaa jirta usari ah oo caa'ilo ah akhlaaq bulshadeed baa jirta akhlaaq dawliyaha jirta akhlaaq dadka muslimiinta iyo dadka gaalada u dhaxaysa intaba ayaa jirta akhlaaqda fardiga ah adigu inaad fiican tahay oo tahaarat nafs qad aflaxa man zakaaha ikhlaaskii iyo taacadii iyo mutaabacadii iyo runtii iyo cifadii adaa lagaa rabaa iyo inaad caradaada qarisid waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaas adaa lagaa rabaa yani dhaqanka wanaagsan oo suluuka shakhsiga ah oo qofka laga rabo in uu ku sifoobo adaa lagaa rabaa akhlaaqda xunna waa lagu diidan yahay inaad isticmaashid oo sukhriyadii iyo wixii la halmaala iyo qofka inaad ku jeesjeestid akhlaaqda fardiga ah oo shakhsiga ah oo adiga lagaa rabo horta waa in lagaa helaa taa waa masalo akhlaaq caafimaad waxaa jirta usari ah oo cidda ka dhaxaysa waalidka waa inaad ixsaan u suubisaa waalidka ixsaankiisa iyo birulwaalidayn waa khuluq wanaagsan laakiin waa akhlaaq usari ah wabilwaalidayni ixsaana qofka waalidka inaad ixsaan u suubisid baa ilaahay xukumay waqadaa rabuka an laa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayni ixsaana qofkii waalidka ahaa inaad ixsaan u suubisid baa ilaahay farad ka dhigay waajib ka dhigay waxaa ka mid a carruurtaada inaadan layn oo aadan ku gaboodfalin walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaq inaad carruurtaada iyo xaaskaaga aad wanaag la jeclaato ina kaa xumaan oo akhlaaqda wanaagsan quu anfusakum wa ahliikum naara ma garata dadka ehelkaa ahaa iyo arxaamtaadii ahaa faaati da lqurba xaqah qofkii dadkii kaa horreeyey oo magaciisiga ahaa waa inaad siisaa nebigu markuu dhimanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaalu ka dardaarmay waxaa ka mid ahaa arxaamakum xadiiska anas baa wariyey fii maradi mowti markuu dhimanayey war dadka riximka ah ka warqaba oo u naxariista oo wanaajiya ayay ka mid ahay waxaasoo dhan marka waxa wey akhlaaqda usariga ah bay ka mid haweenkaagii wacaashiruuhunna bilmacruuf inaad wanaag kula dhaqantid walahunna milu aladii calayhinna bilmacruuf ma garatay ayaguna xaqaasay leeyihiin adna xaq baad leedahay ayaguna xaq bay leeyihiin waa inaad siisaa waa inaadan ku suubin wixii mas-uul alla kaaga dhigay icdaal iyo wixii la mida inaad ragga u diidid wadaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhun an yankixna aswaajahunna ida taraadaw baynahum bilmacruuf inaad meherka siisid waaatu الnisaءa saduqaatihinna nixla wahaakada akhlaaqda wanaagsan khayrukum khayrukum liahlih nebigu saasuu yidhi salawaatu ullahi wasalam usradii iyo caa'iladii iyo waalidkii iyo carruurtaadii iyo qaraabadii akhlaaq khusaysaa jirta oo loo yaqaan akhlaaq usari ah mawduuc bay qaadan kartaa muxaadarana bay qaadan kartaa laakiin waa dul maraynaa haddii aan la yidhahdo waxaa ka mid ah akhlaaq ijtimaaci ah akhlaaq bulshada akhlaaqdaas bulshadu waxaa ka mid ah in aad tahay
qof saalixa oo dadka bulshada ah kugu hareeraysan aadan dhibin kaas horta kowka ah almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi bulshada kula nool waa inay kaa nabadgashaa nabadgalka ay kaa nabadgelayso waa sadaqa wey sadaqa ayay gelaysaa ma ahan inaad intaad yeeshay waxaa lagaa rabaa in aad noqotid akhlaaq iijaabi ah oo waxtar ah inaad la timaadin wayudcimuuna aطacaama calaa xubbihi miskiiman wayatiiman waasiira inaad dadka wax tartid baa lagaa rabaa aytaamtii iyo araamishii iyo dadkii lasoo qafaashay inaad wax tartid baa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa inaad raxmad la timaadid xadiiska saxiixa ahaa oo nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi waxaa ka mid ahaa inuu yidhi irxamuu turxamuu waqfiruu yaqfir illaahu lakum ma garatay waxaa lagaa rabaa islaaxu daati اlbayn inaad dadka dhexdhexaadi sida isu keentid baa lagaa rabaa waa akhlaaq ijtimaaci ah waxaa lagaa rabaa inaan dadka xoolahooda cunin laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطili ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum oo lagaama rabo inaad tahay balaayo dadka booba oo dadka dhaca wax gado oo tijaarayso oo dadka wax ka bedelo taasaa lagaa rabaa qishkii laguma ogola waylu lilmutafifiin aladiina ida اktaaluu cala اnnaasi yastawfuun waida kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun yani waxaa lagaa rabaa markaad wax gadanaysid qishka inaad iska daysid qishku ma ahan wasniga iyo kaylka keliya maaha qishka waxaa ka mid ah wax dhacay inaad keentid waxaa ka mid ah wax aan loogu talagelin jawdadii la rabay aan ahayn inaad keentid oo bini aadamka aan loogu talagelin wax inaad keentid mulawah ah oo wasakhaysan oo ay dhici karto mararka qaarkood hadda burka ukrania laga keenoo kale waxaa la yidhaahdaa waagii mufaacilkii nucleerka ahaa oo qarxay ayaa wuxuu subiyey ishcaac iyo inuu fallaaragano adduunka waa laga mamnuucay lagama qaato burkaasoo kale meelaha adduunka ah laakiin waxaa dhici kartaa inaga burka inu loo keeno cage laga keenay yaa yaqaan qishka daawooyinka la keenahayo dooskii loogu talagalay ma yahay wakhtigeedii ma yahay waa qish qishkaasoo kale waa waxyaalaha akhlaaqiga oo ijtimaaciga ah oo loo baahan yahay bulshadu inay nadiif ka tahay akhlaaqda usarigaa bay ka mid tahay waxaa ka mid ah dadka taagta yaran xoolahooda inaan la cunin walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakburuu carruurta yararkaa xoolahooda in la cuno oo aytaamta ah wixii iyo dadka ducafada ah cumuuman dadka looma ooyaanka soomaalida u bixisay oo aan ciddi kaaga daba imaanayn in aad hargaamaysid lama rabo waxaa lagaa rabaa dadka waxooda inaad u nabadgelisid walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum yacni inaad qof waxaa jira muslimiin tahay wuxuu rabaa tijaaradiisa u socoto inuu kuwa kala caayo oo yidhahdo kuwaas ma ujeedaa macno mal wax dhacay bay keeneen kan weeye kayta weeye dad saasaa jira oo isleh adigu taadu ma soconayso haddaan dadka ilaahay aadan jaa'ifayn ma garata taas waa akhlaaqda ijtimaaciga waxaa lagaa rabaa wax alla wixii keeni kara mujtamacaas inuu isnoco oo sida suurat alxujuraat ay sheegtay laa yaskhar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum walaa nisaaءun min nisaaءin casaa an yakuna khayran minhun walaa talmizuu anfusakum walaa tanaabazuu biاlalqaab dhaqankaasoo dhan inaad tusisaa lagaa rabaa inaad soomaalidu waxay ku haysaa ilay iyo lugay iyo wax maaragtay dhaqan noocaasoo kale ah ayay isticmaalaan sukhriyada qofka maxaan ku idhaahdaa lagu jeesjeeso waxaasoo dhan diintu waa diid waxay diidday tajasuska ijtanibuu kaiira min aldan ina bacda aldanni ism walaa tajasasuu waxay diidday hiibada walaa yaktab bacdukum bacda ayuxibu axadukum an ya'kula laxma akhiihi mayta fakarihtumuuh yacni dhaqanka ah in laysxanto oo laysbannaysto oo diradiraala jiro oo tajasus jiro yani tatabuc cawraati الnaas in la raacraaco akhlaaqdaasna waa la diiday maxaa loo diidayaa nasiijka ijtimaaciga bulshada isku xirnaanteeda buu dhaawacaya bulsho isnacday bay noqonaysaa bilcagsi waxyaalaha la jideeye waxaa ka mid ah ifshaau salaam oo bini aadamku uu isku jeclaanayo
nabiga hadalkii ugu horeeyay markuu Madiina yimid laga maqlo hadda bulsho muslimina markaas la asaasay ogaada nabigu wuxuu yiri afshu salaam wa at'imu at-ta'am hadalkaas ugu horeeyay nabiga wax laga maqlo sallallahu wa sallam afshu salaam salaanta in la fidiyo ala man arafta wa man lam ta'rif qofka taqaani qofka aan aqoon yaani nabadgeliyo wala isnabadgelinaya dilaata ma jirto ilaahay hakuna xariisto nabadgeliyaha ku siiyo wasaas way nabigu wuxuu yiri waxa idin ku xasadaa yuhuud laba arimood salaantaas iyo aamiinta aad leedihiin marka salaada tukanaysaan yuhuud wada ku xasdaysaa maxaa dhacay waa qiyam in la isnabadgelinayo iyo in ummad la wada yahay jamaaciyo meel lagu wada tukanayo akhlaaqdaas marka waa akhlaaq ijtimaaciyo loo baahan yahay in la ilaaliyo oo bulshada oo dhan ay wada ilaaliso isku naxariisadii dadka jaarka inayna isdhibin waa akhlaaq ijtimaaciya wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqah qofka aan dariski ka nabadgelayn wax qiimo ilaahay xaqiisa kama leh haduu rabo ha tukado sunnadu yiba hiya fi an-nar markii la haweenaydan waa tukata laakiinha tuudi jaaraha hiya fi an-nar akhlaaqas marka ijtimaaciga ilaalin ay u baahan mujtamaca xayiga oo noolna waa mujtamaca isku naxariista isnabadgeliya maxaan ku idhaahdaa akhlaaq ay ka dhaxayso wada joog ay ka dhaxayso ayaa loo baahan yahay waxyaalaha ijtimaaciga waxa kamid dhulmiga oo kale in la joojiyo ilaahay wuxuu in Allah la yuhibbu adh-dhalimin waqad khaba man hamala dhulma qofkaasi waa hoogay yaani dhulmiga sharcadu ma ogola xadiiska ugu muhiimsan oo reer shaam ay wariyaan wa xadiiska Abu Dharr nabiga uu ka warinay sallallahu wa salaamu alayhi Abu Idris al-Khawlani marka uu warinayo kaana wuxuu yajthu ala rukbatayhi wuxuu ku fariisan jiray labadiisa law ya ibadi inni harramtu adh-dhulm waja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu xadiiskaas يعني إلهي وحرم ظلم حديث كاس من أعظم حديث يرويه أهل الشام حديث يوريه حديث وقيم بناوي ما قرأتي حديث كاس الظلم كاس ملك سهقله أفكا أم حاس ظلمين أيو أم حاس كسها ظلمين أيو أم عروض سها ظلمين أيو أم محاكو إلى هذا أقارب سها ظلمين أيو أم برشدك لها ظلمين أيو أنت بوسوق ليس هذا سؤال اللي سويديني waxa ugu badnaa haweenka yaani intii laga tago oo aan masruuf la siinayn oo aan la dhaqayn oo aan la dhigayn oo aad moodid adiga adoon ay soo iibsatay inay tahay qoftana 3 sano liiga maqan yahay ilaa baan ku dhaashay ninkaasi nin kariima miya nin xishoonaya miya nin wax isku falahay miya nin ilaahay ka cabsanaya miya ninka haweentu meel ku qabirto 3 sano aan juu soo oranayn oo aan wax siinayn oo caruurtiisa ka warqabin kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu qofka intaas ku filan dhulm intaas ugu filan ithm intaas ugu filan marka arimahaas oo dhan waa arimaha ay diintu diidayso waxa la diidayaa in waxa khaladka la isku kaalmaysto sharcidu ma ogola waa akhlaaq ijtimaaciya wala taawanu ala al-ithmi wal 'udwan بينما اللي أقول له واحد ولا سنة سكر مست وتعاونوا على البر والتقوى هذه برشدة أين سكر المسنة واحد واحد حمانته ولا وايه الله للمهيو ننت الله الله للمهيو نلا تودد لا يي دل الله مرسن مايو وحسن ولا قد تونانية وحكمت أخلاق الاجتماعية قول الزور واجتنبوا قول الزور ودوقتي هنا قف بعد بين شيء هي وبين كبرخاتك عاية وحق إسلاميات قاعدنية ما قرأت يدعي كرت إنه قصاص وقف يدعي كرت حول إسلامي إنه كقاته يعني يدعي كرت إنه كبر نيسته فرج حرارة واجتنبوا قول الزور نبي ونوح كل شيء موبقات كأنه كجرته صلوات الله وسلامه عليه وحكم إذا حق إلا قريه وأحيانا اجتماعي قوي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قف باب الخاتئة وكل أي أنا ما حيقال أنا إذا كان شدود ولا مقلي كروه والحق بابا هي وحبا مارتي لليه هي وواجب بابا مارت اللومة هي وين شكتها
waaqiimu shahaadata lilah waana runta sheegtaa oo ka markhaati kacda bulshada nool waa saa bulshada nool waa saa waxaa ka mid ah amaanaadka in la celiyo in allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha amaanaadka amaanaduna macna awsaca weeyaan wax lagu dhiibtay kaliya maahan xataa xilalku waa amaano amaanadaas in la celiyo weey akhlaaq wanaagsan oo dhan in lagu sifoobo weeye oo ay ka mid tahay islaax daat albayn laa khayra fi kathiirin min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas hadda waana ogtihiinoo maalin walba waxaa waajib nagu ah intaas oo daynahna laku leeyahay waxaan ku gudan karnaana waa sadaqa inaan bixinno waa in aanu amar macruuf aan farno waa inaan qof u kaalmayno waa inaan imaadat aladaa can اطariiq aan jidka ka qaadno waa in aan dadka dhibka ka dayno waxaasoo dhan sadaqay noqonayaan waxaasoo dhan sadaqadana aanu maaragtay la imanayno ayay noqonayaan yacni qof waxaa tahay iijaabi ah oo waxtar ah oo bulshadii wax u kordhinaya bulshadii akhlaaqdaas waxaa loo yaqaanaa akhlaaq ijtimaaci ah waa in la ilaaliyo bulsho kastoo nool waxaa laga rabaa taa waxaa laga rabaa haddii xataa xumaani timaado inaadan xumaantii laftigeeda aanan la imaan idfac bilatii hiya axsan ma garat wayadra'uuna bilxasanati asayi'a ulaa'ika lahum cuqba daar ilahay saas ugu sheeg dadkaasi wixii xumaan ahaa waxay ku jaazaynayaan oo ku gufaynayaan oo ku gudbaayaan wax wanaaga saa darteed marka bulshadaasi inay noolaato ayaa idman akhlaaq laga rabaa jirta dowladda akhlaaq yacni dhaqan dowladeed ah oo laga rabo ninka raaciga ah oo mas-uulka ah waxaa ka mid ah inuu ummadda la tashado waa khuluq la tashigu nebiga waa lagu ammaanay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr aayaddan waxay soo degtay bacda ghaswati uxud gadaasheed uxudna waad ogtihiinoo la tashigii lala tashaday dhallinyarada dhib baa ka yimid ayagaa rabay in la baxo oo halkaa la aado oo magaalada laga baxo nebiguna ma rabin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh in la baxo laakiin waxaa la leeyahay arrinkaasi keeni maayo in lagu khaldamay ma keenahayo in musaawaradaasi ay tagto washaawirhum fi lamr hal isku khilaafo shawrku ninka madaxda ahi ma waxay ku tahay waajib mise waa shay nadbi ah culummadu ha isku khilaafeen raggoodii hore laakiin wakhtigan hadda mucaasirka ah oo la joogo haddii ninka la yidhaahdo jeenigaa furan oo xaakim mutlaqa hatay saa rabtaa yeeli kartaa ummadda cidi ka hari mayso saa darteed ninkaa waa in lagu sandulleeyaa inuu bulshada la tashado ahlulxalli waalcaqd inuu la tashado wa amruhum shuuraa baynahum saasaa lidadka muslimiinta ah waxaa ka dhaxeeya iyo amarkoodu waa laga mushaawaroodaa nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi umuurihiisoo dhan tashi bay ku socdeen ma garatay beder laga bilaabo maxaan ku idhaahdaa caggee degnaa ilaa iyo noloshiisii oo dhan xataa haweenkiisa uu la tashado umu salama xudaybiyo kale uu yidhahda dadkii warkayga waa diidana see yeelaa tashigaasuu ku jira nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhaqankaasi marka waxaa la rabaa mushaawaradaas siiba caalam islaami waxaa aad ugu badan istibdaadka iyo keligitaliska iyo maxaan ku idhaahdaa nin aan dadka warka ka yeelin arrinkaasi marka mushaawaradah waa akhlaaqda islaamka oo in lagu dhaqmo ah saasayna ahaayeen dadkii wanaagsanaa oo saalixiinta ahaa oo ummadda waa la tashan jireen oo weli caada cumar waad ogtihiin oo waxaa quraada ayaa majliskiisa fadhiyi jirtay oo wuxuu sheegi jirtay waxaa ka mid a akhlaaqda laga rabo dowlad ahaan la rabo khuluq alcadl cadaalo in la helo wey cadaaladu waa ummaduhu waxay ku jiraan weeye ummaduhu waxay ku dhisnaadaan ma garatay ummad aan cadaalo ku dhisnayn ma noolaan karto walidaalika culimmadu waxay yidhaahdaan ummad kaafir ah ama dowlad kaafir ah oo caadiladii inay jirtaa dhici karta
laakiin dawlad muslim ah oo daalimadii ma jirayso sababtu waa sunna ilaahiya sunnada ilaahiga ahi dulmigu ma sii waari karo dulmigu ma leh jirada dheer uu ku istaaga ma leh saa darteed ummaddu waa inay dareentaa in cadli jiro oo loo garsoorayo cadaaladdu macnaheedu ma ahan adiga waxaan ku siiyo inaa hebla siiyo dadka waxay isku khaldaan cadaaladdu waxa weeye qof bal meeshuu munaasabka ku ahaa in la geeyo wey dadku kala cilmi badan kala karti badan ma garatay waxaa la rabaa in la geeyo qof walba meeshuu u qalmay in la helo qiyam alcadligana waa in la kobciyaa ma garatay ولذلك إلهي وحي إن الله يأمر بالعدل والإحسان آيات waxay yiraahdeen أجمع آية للبر والفضل ومكارم الأخلاق والمساس كشيء آيات كل مسوية مكارم الأخلاق إن الله يأمر بالعدل عدل وواجب وعدل وهذا ما أهنك صاحب كاية كليئة حتى عدو هذا عدالة لو بهيه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وإذا قلتم فاعدلوا هذا ترى هذا العدالة كل سنة وأن جور كل سنين نهاية عدالة مركوة للجميع كافر هالنقضو حبيب هالنقضو بعيد هالنقضو قريب هالنقضو وعداله صادرتين إحسان كنا وتفضل وفكينا وإحسان فشين وأرين كلام أرين كاس مركا وحال الرباء إلا إلاليه وأنا قيم كآد أدمي عالم الإسلامي حق دولته إذا وحكرمي وحكمذا عدالة كمذا قفكو إنو نوحو حق لها ونهلين أيها كمذا بالشدو مركا وحال الرباء إن أي كوخاسة بتوضدك ملاحظة أوه إن عدالة صوبيان وحكمذا أخلاق الدولة الرحمة على الأمة وماذا لو نحرسته نبي هدي وسجي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا قفكي شيء كم إذا أمضي إذا ملحك النقضة أو فشق عليهم لبه فشق عليه أدونا اللجو وهذا كتور هدي دعاء النبي كان مجاب قف الله لا يقفكي قبته أمر كمسلمين تميل كم إذا هو رفقي وصوبيانا إله أن أطر هذا أينا ومجاب والأجيبة هي مركب حرها ومدى إن لو نحريستو الله دريمه ديرتا يا هوينكا يا عرورتا يا ضدك يا هذا كشقية يا رير باديها يا تبالها يا أبارها يا ضدك أقومها يا ضدك سكولنا دكتها يا ضدك دوسك دكتها يا ضدك والن يا أضياشة يا رحمة الله بهاي ضدك مسلمين توحي لهان شرين dadkaasoo dhan in la muraaceeyo oo baytulmaalka wax laga siiyo oo asnaaftaasoo dhan laga warqabo oo ummaddaasi ay noqoto ummad israbto isqaadata ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay dowladdu inay ilaaliso ummadda akhlaaqdeeda ayaa loo baahan yahay إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة dadka jecel in faaxishadu ay socoto oo iska socoto faaxishadu waxay ku socon kartaa ama in dadku ay ku sheekaystaan ama in wasaa'il loo istiqdaamsado hadda tirada ka badatay ama internet ha noqoto ama TV ha noqoto ama cinema ha noqoto ama mobile ha noqoto ama hadal ha noqoto wixii noocaas oo dhan oo faaxishaha mujtamaca karaamadiisa wax u dhimahaya dadka la rabo inay qabtaan oo ummadda ka ilaaliyaan وحويه ودولة دوي فافريب وحيلا فافريب كله يقانوي ومدوا وين حينداب أي لاده بحال سوق ليه waxa soo galay waa in laga warqabaa waxa dhici karta cunada dhacdayna soo gasho waa in laga warqabaa waxa dhici karta akhlaaq xun inay soo gasho waa in laga warqabaa waxa dhici karta dad jiran oo xambaarsan cudurro khatar ah oo AIDS iyo wax la mid ah ee bulshada soo galayaan waa in laga warqabaa waxa dhici karta akhlaaqda wadanka ku socota dadka bulshada ah oo da'yarta ah oo aan wali wax kala dareemin ayay saameynayaan dawladda laga rabaa inay wax ka qabato aflaamta la dhigayo maxay yihiin dawladda laga rabaa idaacada maxaa ka baxa dawladda laga rabaa waa kada yaani jihaaskaas
يعني رقابة أو إني إلى لساء وفافريبك وحوية ودولة وحلقة ربوية واللوبة هي إني كور قبطه waxyaalaha runtii kale oo la oran karo akhlaaqda dawladda muslimka ay kula dhaqmayso dadka kale oo aan muslimiinta ahayn waxa kamid oo ay dhici karto in aan aad loogu baraarugsanayn in macrakadii akhlaaqiga ahayd oo aan isleenahay maanta waxa yar oo u haray dadka muslimiinta waa wixii lagu soo islaamay oo mashriq iyo maghrib dadka maanta muslimiinta waxay ku soo islaameen dadkii muslimiinta oo wanaagsanaa akhlaaqday ka arkeen wadama aan la furan oo aan xoog lagu imaan ayaa islaamtay oo tira badan hadda Indonesia dawladda ugu weyna lama fatixin oo dad tujaara u tagay waxa uu dadkaasi qanciyay dhaqankii dadka muslimiinta ama run ha sheegayeen ama ballanka ha oofinayeen ama ha ahaadeen dad raxmad badan ama dad dulqaad badan ha ahaadeen ama dad cadaalad ku dhaqma ha ahaadeen akhlaaqdii ay ku arkeen ayaa keentay dadka islaam ma garatay marka arrinka noocaasi dadka muslimiinta maanta ma wataan oo dhaqanka ma wataan waxaan ka cabsanayaa in arrintu ay noqoto arrin cajaa'ib sababtu marka gabadha Yurub joogta lagu kaxaynayo walaalkeed uu leeyahay naagtaydii way oo saa uu ku geynayo ma garatay ama oranaysa ninkeedii waa kala tagnay oo meel cilaa ay tagayso oo masanaayado uur leh ay dhakhtarkii u tagayso oo dhakhtarkii uu leeyahay ku ureeyay saaxiibkay oo uu leeyahay adiga diidan inaa wajigaaga arko ama aad islaantid seebaad nin ajnabi kaaga zinayst akhlaaqda noocaasi akhlaaq cajaa'ib ah akhlaaqda cajaa'ibka waxa kamid ah cayrta la qaadanayo oo beenta la sheegayo oo 25 meelood la iska sajilayo akhlaaqdaas ma u maraynaysaa inaan dad ku kasban karno inaan ummad ugu sheegi karno inaanu fiicannahay ma dhici karta waxa u maraynayaa arrinkaasi in wax badan ka soo noqon doona yani waxa weeye qofku ku fiirin maayo waxa aad sheegaysid waxa uu ku fiirinayaa sida u dhaqmaysa ballanka ilaalintiisa amaanada runta samtiga ka muuqda waxa qofku qadarinaya arrinkaasina waxaan isleeyahay waqtiga hadda la joogo waxaan u maraynayaa akhlaaqdaasi inaanu ku dhacno ayaanu ku sigannahay ilaa baqiya yar mooye dawladda muslimka waxa laga rabaa in ay ballanka oofiso wixii ballan la gasho waa in oofiso oo ballanka oofintiisu arrin yar ma ahan xataa haddii dadkaas as leedahay way burinayaan ballankaas waa inaad tiraahdaa ballankaas waa ka baxay oo iclaanisa وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء هذا أصلي بلنك نينك وكبح يا أصلي وكدكر يا وكاور إيمانيا واحد ترى هذا نيو بلنك هاس وكبح سوف قوله بروح في رسالة نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه سوء لدقمي حديبية لدكي بلنك للك لي بلنك مركي ودماضي أيها هلك وحيمد أبو جندل oo hadii waxa ka muuqda Ilaahay og yahay oo hadii la cadaabay oo muslim markaas uu leeyahay magaalnimadii baa leeyahay cilinaya magaaladii baa leeyahay cilinaya ballanka waa u fiirinaa maxaa dhacay inuu wuxuu fiirinayaa salawaatullaahi wa salaamu alayhi wuxuu fiirinayaa natiijada iyo thamarada uu fiirinayaa ummad aan ballan lahayn oo akhlaaq lahayn oo ahdi lahayn macna male magarat macna male ummadu weyn qofka muslimka waa qof kaliya qofka kaliya sabir iyo adkaysin iyo ihtisaab iyo ajirki waa uu helaya haduu ku dhintaana janno ku galaya hadii Ilaahay faraj u keenana faraj buu yeelanaya laakiin ummadii in loo kharibo maahan qiyamkeedii maslaxa aani ah oo mar muuqata in loo baabiyo ma alwafa bil uhud wax sahlan ma in Allah la yuhibbu al kha'inin kha'inta Ilaahay ma jecla ma garatay marka arrinkaasi waa arrin loo baahan yahay in loola dhaqmo waxyaalaha cajaa'ib kale waxa kamid ah dadka gaalada hotelada naga dhaxayso dadka naga dhaxeeyo haday
ammaan weydiistaan oo keeno oo quraankan maqlayna wa in la maqashiya haday diidaan oo yeeli waayaan bashada lagu celiyo wa in ahad min al-mushrikeen istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah meeshis in la geeyo يعني بلنك أد قشبها ساعة وأنا بلنك أوفيسا عهود إنه حتى وحي عهد اللي هم لا ينكروا قف إنا جميدي هادو بلن قف كانوا وبلن كاسيسا كوي مادو معهن فلان يزيد يعلان إنه سكاف ضبطه معهن ومضي عيبين يسا ومضي بابين يسا حتى وحي كاني كره يعني قف أحد من الناس واللهم لا ينكر قف مسلمين هسا علي هدان برينو ما قرأت قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني نبي ساسو كويري فتح مكة أم هاني waxay tiri walaal in adeerka wuxuu leeyahay waa cali waxaan dilahayaa ninkan waa magan galiyay qad ajarna man ajarti ya ummaha qofka adigu magan galisay waa magan galiyayna marka dadka muslimiinta waxa rabaa inay ballanka saa ku ilaaliyaan dagaalkii laftigiisii oo aanu gaalada la direenin akhlaaq bay leedahay ma ahan wax akhlaaqda ka baxsan akhlaaqda in ilaaliyo way waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu إن الله لا يحب المعتدين قال هذا أندريني ما هو أندريني سهرنا يلي كنا دريرتي أخلاق بيلاده عنق اللي ديلي ما هي يركع هوينت اللي ديلي ما هي ما كانت هذه لتقاتل ما قرأت ننك أضاق أو زمنك اللي ديلي ما هي ننك راهبك أو كتير كنيسة أما ماشي كل عبادة سنة يلا تابن ما هي بذك عن مقاتلة هاي خدمك على اللين ما هي وحسوا أخلاق الإسلام دقالك حتى ما أعنيك وادررتين سارت أو درير قبيد إسلام كوحي غانا درير قبيد إن لك أتكاضي وقال هذا نجا أتكاضي وإن حق بضتين ما عن إن القيم كأني يا شريعة ديني أخلاق دين أم بابي إنما ما قرأت أخلاق دين إنم وإن دريرنا لكن درير قبيد عن دريرنا وإسكعلنا عدو سيد اللي إسكعليه لكن بأخلاق ودكتي إنه وحي دعهاي وقال إسلام درير هايين وأيه هوري هذا أخرية تاريخ الحضارة العربية جوستاف لوبون إن كان فرنسيس كاه وكتاب كقري مركي صليبيين تو أي قدس يقبصدين يمالها صلاح الدين الأيوبي كقبصدي سويا علي صلاح الدين الأيوبي حتى ذلك أهل ذي مداها يسوء مجنجليي حتى يهودي باش اللي هو يسوء مجنجليي سوء حريستي سي ان قفدم لو لين وحسنا waxay ahaayeen akhlaaq islaam wax la mid ah ma arag biiraha ay wuxuush bay ahaayeen waa una wuxuushiin ila hadda akhlaaqiyadka wax shuwa ka buuxa si u dhaqmayaan sida Ciraaq yeelayaan sida Afghanistan yeelayaan sida Arab Islaamka yeelayaan si u dhaqmayaan kulli waxnima ka muuqata farqiga inoo dhaxeeyana waxa weeye inaga dagaalkeena waa dagaal akhlaaq ku saabsan qofka xataa la dilahayo tamthiil ugu suubin maayo لقوقين ما هيو ما قرأت لقوبي ما هيو وهكذا يعني وحوي دقن قبيد وكترجمة هي الدين سماوية وخاتم أو أخلاق كل سن وإنك لعلى خلق عظيم أي دينتين كل سن تهي ما قرأت معهن أخلاق ذاس حتى قفك أسير كأها والأمر استجاي أطهى الله سوك يليو أما هو أودلين أما وأفران وفكله أما وعفيني أنت بحق بولي أنت بحق بولي لكن ويدعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وفكاسي أنت أنويتشو وإن كرامية وإن وحلا السيا وإن وحلا ترى مقرتي وإن صبر لو دلين إيو قاتشين مقرتي أخلاق ذا صورا وأخلاق ذا لقربه عفوي مركا قاركو هذا أكتها يقفك كان إنه وحكو تري دونه أما ورسالة في عن كابود بين دونه أنا نفس استعمال ثمامة ولا صحري ربنا حنيفوها بساك على صحري هل كسكو حريه وأركي إذا كمسلمين تكون هي حبال التريح حبال السين هي سياتها هي بالأورن هي مركي دبول السيدة هي إسلامي أسير بوها المسلم أيونه يعني دغن كأه ضدكو إن النار تقلان إنا شعلانه وحكفي عن إنا شعنا ضدكو إني تنذا قلان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة دي إلهي نوح لوصو دري
qofkii aan badbaadin karno oo ka badbaadin karno min annaar in laga badbaadiyo wey. salamat ibn alakwac ilaa 70 nin buu xudaybiye soo qabtay oo keenay. nebigu markuu keenay wuxuu yidhi iska sii daa, laa nabda'uhum bifujuur, ku bilaabi mayna anagu fujuur, ayagu ha qaateen fujuurka awalkiisa aakhirkiisa ha qaateen hadday quraysh yihiin. wuu sii daayay madra calayhim. wahaakada waxa weeye abaal ayaa nebigu suubinayay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. wuxuu muطcim ibni cadiy hadduu nool yahay oo igala hadli lahaa kuwa kan hadda maanta aan soo qabsaday oo asraa badri ah, wuu sii dayn lahaa. muxuu u sii daynayaa? waagii taa'if uu ka soo noqday ninkii magangeliyey weeye nebiga salawaatu ullaahi wasalam, yani abaal buu gudayaa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh. wuxuu yidhi hebel haddaad aragtaan yaan la dilin dagaalka beder. maxaa dhacay? wuxuu ku jiray raggii saxiifadii kacbada lagu waxeeyey raggii burburiyey oo soo riday buu ka mid ahaa, oo muqaadacadaas yidhi maxaan ku idhahdaa ma soconayso. ma garan? wahaakada yani abaal ayaa la dhiganayaa, abaal ayaa la dhiganaya, xusnu lkhuluq ayaa la muujinayaa. xataa waxyaalaha loo diiday in la laayo munaafiqiinta nebigu ka warqabo inay gaalo yihiin. laa yataxadau الnaasu ana muxamadan yaqtulu asxaabah. dad ku sheekaysan mahayaan in maxamed baa dadkiisa laynaya, ku sheekaysan mahayaan. dacwadu sumcay u baahan tahay, in la ilaaliya u baahan tahay. waxaana laka sheegahayo waxa weeye maaha inaan macno ku fadhin, macno ku fadhiyaysaa. dad badan bay xaqii ka daboolaysaa. saa darteed akhlaaqda wanaagsan in lagu dhaqmo wey. akhlaaqda ah in dadka khayr la jeclaado. nebi maxamed salawatu ullahi wasalaamu calayhi markii taa'if uu ka soo noqday oo sidii loo galay, malakuljibaal wuxuu yidhi kuwa kan ma halaagaa? may buu yidhi. ilahay waxaan ka rajaynayaa an yukhrija min aslaabihim man yacbud allaha laa yushriku bihi shaya. ilaahay waxaan ka rajaynaya inuu ka soo saaro caqibkaas ayaga, inuu ka soo saaro. waana laga soo saaray, waana laga soo saaray. ma garatay? man taqama linafsih, naftiisa weligii uma xanaaqin. innagana ogaada waxyaalaha hadda in ugu badan oon u malaynay inaan diinta u xanaaqsannahay, ashkhaasteena aan u xanaaqsannahay, innaga nafteena aan u xanaaqsannahay. waxaan diidannahay hebel baa i xumeeyey, ama hebel baa saa ii yeelay, ama hebel baa saa ii micisay, ba akhlaaqdaadii iyo makaarim alakhlaaqdii iyo wixii la ogaayo dhan kaga tanaazulaysa. ma garatay? qofku dadkuna waa bini aadanoo waa fahmaya. qofka akhlaaqda leh oo waxa kan qiyamkan rumaysan waa muciis. qof baa waxaa arkaysaa wuxuu leeyahay diinta tan sabir bay u baahan tahay, in loo adkaysto, lagu cadaabo oo lagu shideeyo. qof wuxuu ku leeyahay aniga daaci haddaanan askar haysan iyo qof maaragtay askari waardiyeya dadka u yeedhi maayo. oo dadku waxaa rabtaa inay ku ammaanaan keliya. laa yumakkanu rajulu xataa yubtala. shaafici baa saas yidhi. qofka sidiisaba lama tamkiiniyo oo boos looma dhiibo ilaa la ibtileeyo oo la ogaado qofka horta saalix bayna saalix maaha. akhlaaqdaas tirada badan oo sii dhumaysa oo aan isleenahay waxa weeye dacwadu say ku bilaabatay iyo maanta say marayso farqi baa u dhaxeeya. badbaaday u baahanta. waxay u baahan tahay inaan nafteeda muraajacayno. waxay u baahan tahay inaan ogaano ilaahay waxba inagama rabo. wamaa khalaqtu اljinna wاlinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun. yacni ilaahay waxba uguma oolid. naftaada un dadaala inaad badbaadisid. naftaadana maxay ku badbaadinaysaa? inaad jidka saxda ah ku socotid oo aad ku miisaantid miisaanka sharciga. waxaad suubinaysid, waxa aad diidaysid, waxa aad nacaysid, waxa aad jeceshahay ha noqoto wax miisaanka sharciga ku salaysan ha noqoto. wasali allahuma wasalama cala nabiyina muxamadin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin. waxsan allahu ilayka wanafaca allahu bika alislaam walmuslimiin. in sha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga rajaynaynaa inuu sheikha miisaankiisa xasanaadka ugu daro kelmadda wanaagsan ee qayimka oo noo soo jeediyey ku saabsan shareecada islaamka iyo qur-aanka kariimka. in sha allahu tacaala waxaan u gelaynaa iminkana qaybta labaad ee ay caawa ka kooban tahay barnaamijka aan idinkugu talagalnay. waxaan ka jawaabaynaa su-aalihii sidii caadadu ahayd. habeen dambe oo jimco ah in sha allahu tacaala waxaa naga xasuusina inay nadwadu inoo socon doonto in sha allahu tacaala oo ay jiri doonto. qaabkana uu noqon doono barnaamijku fataawa mutanawica oo lijamiic alculamaa ay su-aalaha ka jawaabi doonaan in sha allahu tacaala min salaati almaqrib mubaasharatan ilaa waqti hadda aynu ka baxno. waxay noqon doontaa barnaamijku in sha allahu tacaala su-aalo iyo jawaabo.
su'aalahan insha Allah waxaan weydiinaynaa akhuna Sheekh Xasan isaga ayaa insha Allah taala nooga jawaabi doona. su'aasha koowaad waxay oranaysaa malaha haween baa soo qortay ninkayga ayaa iga tagay anigoo haysta 2 ilmood midna uurka iigu jiro ilmahaas dambe oo 2 sano jir ah ayuu soo noqday wuxuu iga ogaana ma jirin markuu yimi ayuu igu bilaabay dil iyo caruurtayda isii markaan u naseexayana erayo xun ayuu iigu jawaabaa maxaan yeelayaa bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu alayhi wasalam gabadha waxaan filayaa masaladeeda khayr allah siiye sheekha ka jawaabay casharkii bay ku saabsanayd gabar muslimad ah oo laga maqan yahay la dulmiyey iyo dadka usrada dadka muslimiinta qoyska waxa looga baahan yahay khaasatan anigu inta sheekha waxaan raacin lahaa ninkaas ilaahay inuu ka baqo gabadhaas miskiinada ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala mas'uulka uga dhigay inuu ilaahay u toobad keeno ilaahay u noqdo gabadhana xaqeeda uu mariyo haddii arintaas yeeli waayo maxkamad baa ka horeysa cadaalad ah oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu qaadi doono marka intuu nool yahay oo waqtiga haysto inuu istaba qabto oo gabadha muslimada dulmiga ka daayo intaasaan kula talin lahaa iyadan waxaan oran lahaa ilaahay u sabir ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu khayr badan ku siiyo wax wanaagsanna ilaahay kuugu bedelo barakallahu fiik Sheekh Xasan su'aashaas oo inoo kaga jawaabay su'aasha labaad waxa weeye iyadana qof dumar ah ayaa soo qortay 3 Ramadaan ayay isku kay gaaray mid kastana tiro ayaamo ah ayaa la igaga leeyahay maxaan yeelayaa horta asal qofka muslimka ah inuu soomo ayaa waajib asal ku ah inuu qofku soomo baa asala xilliga uu soonku joogo oo waqtigiisa haddii ay suurto gali weydo inuu qofku soomo oo cudurdaar sharci ah uu ku afuro ka bacdina uu suurto gali waayo inuu afuro inuu qadeeyo sanawaadna ay soo noqnoqoto arintaasi way ku dhici kartaa mesela gabadhii inay marna uur leedahay mar waxa weeye ay xanuunsan tahay mar ay ilmo nuujinayso soon tiro badan oo isu tagay oo mesela intaas oo bilood 5 sano baa mesela arintaas oo kale ay ku dhacday intii waxa weeye sanawaadkaas bilaha Ramadaanka u dhaxeeyayna ma aysan u suurto galin inay soonto iyadoo cudurdaar sharci ah haysata gabadhaas haddii ay sidaa ay sheegtay tahay oo soonka qadlihiisa insan u suurto galin bacd al-ulama waxay qabaan gabadhaas inaan ay noqonayso xukunkeedii sida qofka waayeelka ah waxa weeye soonka aan awoodi karin iyo qofka mariidka ah oo waxa weeye aan laga rajo qabin inuu bogsado caafimaado ayay xukunkeedu la mid noqonayaa laakiin mustaqbalka haddii ay awoodo sanawaadka soo socda waxa weeye waa soomaysaa wallahu a'lam barakallahu fiika wa ahsanallahu ilayka su'aasha ku xigta oo Sheekh Xasan aan weydiinayna waxa ay tahay qof ayaa lacag iga deyn qaatay markaan qofkii lacagtii ka waayay ayaan lacagtii waxaan u niyeystay inay tahay zako ma iga ansaxaysa qofkaas horta waxaan u malaynayaa ama inuu nagu cayaarayo ama inay bakhaylnimo u geynayso oo uu rabo inuu zakadii manciyo waxa weey lagu lahaa horta zakadu waxay ka waajibtaa maalka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyey ilaahay ugu nicmeeyay culimadu waxay isweydiiyaan xilliga ay zakadu joogto wixii deyn oo ka maqan ma lagu xisaabayaa maalka waxa weey aad haysato iyo deynta ka maqan ma la isku wada xisaabayaa mise waxa weey la isku xisaabi maayo qowlka raajixa waxay leeyihiin culimadu deynta haddii aad ku leedahay qof deyn horta waqtigeedii gaaray ay tahay qofka aad ku leedahay waqti aad waxa weey aad ku ballanteen inuu ku siiyo
qof wax haystana uu yahay wax damaanico ka hortaagana uusan jirin maalkaada haysato ayay ku xisaaban tahay oo waxa way lagu la zakeynayaa xisaabta lagu darayaa laakiin hadii lagu leeyahay deynta qof mucsira oo waxba iska bixin karin ilaahna subhanahu wa ta'ala uu fa nadira ila maysara ila qofku intuu wax ka helayo in la sugo qofkaas hada waxa weeye deyntaas horta waxba noqonaya qof waxa way lagu xisaabmaayeen horta deynta waxa weeyaan qofku uusan iska bixin karin lagu le miskiinka lagu leeyahay deyntana hada waajib kuma aha waxa weeye inuu waxa weeye waajibku uga dhici maayo inuu u niyeysto deyntii ku lahaa kagan asixmayso maxaa yeelay waxa milkiisa ku jira oo asaga gacan ugu jira oo ku tasarrufaya ma waxaan leenahay waxa uu saw haysto hantida ah waxa way zakada ka bixiyo kana asixmayso waa duuniyeyso maxaa yeelay xilliga uu siinay muusan niyeysan hatta zaka muajjala muusan niyeysan marka ku asixmayso wallahu a'lam بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم سؤال أفراد والشيخ حسن كجواب دونا إن شاء الله تعالى وحي أرانا إساء ملا أران كرا اسخلاف كمان تكوي مسحوة إسلامي وحا أقوين أو كاني ودودي السلف كصالحة ولا خلافي يقف قف كستا أو كوكاف تومي المجيسة ونا اعتقادي إنانو تشرين إدكا أقوم بلا نعم وأنا سلاهي أركتداس إنك سائلك وقضى أنا لفتيد وان قضى إن صومالي دو صدي وشيخ داهر بهبين دويد وكشيخ كيني حق وحبرشاد رقم بيلهان جرين حلقاتك مركب وحلبرته وحوي علومته مساجد لغا قاته قفك وحيقاني قفك وحقون والك لا يقين مددير بواه وحوي منهج بيلهاين فني والبا علمada waxa weeye Soomaalidu oo duruusta xalaqaadka masaajida ka baxaysa qofka amala sidii jaamacad laga takharujayo oo kale ayuu ahaan jiray dalabada wax wada akhrisanaysa iyo mashaayikhda oo akhrinayo bulshadu way taqeeyna qofka wax yaqaana iyo qofka aan wax aqoon jaamacadka wax lagu barto waxa weeye islaamiga ana manahijta waxa weeye islaamiga waxa weeye ku baxana iyadana waa la yaqaanaa dadka ka soo baxay oo caanka ah oo waxa weeye culimada ah ama waxa weeye jaamacadkaas dalka gudihiisa ku yaaleen ama dibadiisa ka yimaadeen laakiin dad waxa jira saxwada kamida oo tiro badan oo dhalinyaro ah waxa weeye wax bilowday oo ama xalaqaad ha noqdo ama duruus waxa weeye madaarista iyo waxa weeye jaamacad waxa ka bilowday kabacdina waxa weeye waxbarashada dhexda uga tagay wax fiirsado isagu daalacday isu arkay in waxa weeye sheekh yahay oo aan laga aqoon badnayn wax badanna uu ka khaldan yahay aragtida noocaas waa qaba qofka muslimka ana marka waxa weeye uu shay diini jeedinayo oo rabo inuu ummad ama wax baro ama uu fadwoodo hada waxa ka horeysa kolka hore isagu inuu wax yaqaano bulsho muslim ah ama dad muslimiina ama gaalaba ha ahaadeen ummad markii shay diini loo sheegayo waxa la rabaa shaygaad ummadda u sheegayso inaad kolka hore iska soo hubiso inaad waxa weeye shaygaasi uu xaq yahay oo sharci yahay hadii aad waxa doonto iska sheegto dakhaladaad badan baa soo baxay ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa tirahaa nabi muxamedow hadhihi sabili tani waa wadadaydi ad'u ila allah waxaan daaci ku ahay oo ummadda ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu yeeraya diintiisa waxa weeye waa wadadaas inta loogama harayna ala basiratin aqoon iyo cilmi waxaan ummadda u sheegayo waa waxaan cilmi iyo macrifo u leeyahay asaga kaliya nabi sallallahu alayhi wasallam laguma joojinine laguma daynine ana wa man ittaba'ani aniga iyo cidda iraacdo wasaas qofka muslimka ee daaciga oo shay diini ah sheegaya waxa la rabaa horta awalan waxa uu sheegaya asagu inuu yaqaano culimada muslimiinta waxay ka hadleen marka waxa qofka muslimka ah waxa uu wax baranayo asaga horta sifaadkiisa tilmaam buu leeyahay marka wax baranayo waxa la rabaa oo kale ayadana qofka wax ka baranayo cidda wax ka baranayo
tilmaan bay leedahay cidda uu wax la baranayo ayadana waxa weeye culimmadu waa tilmaameen manhajka iyo qaabka uu baranayana culimmadu waa ka hadleen waxaa ka mid ah awalan asaga waxa laga rabaa al-ikhlaas lillah horta ilaahay dartii inuu cilmiga u baranayo aad cid kula murantid iyo aad waxa weeye meel ku qabsatid iyo mansab iyo waxa weeye darajaad ku gaadhid iyo waa inaysan ahayn ilaahay dartii waa inuu wax u baranayo waa inuu laba sheekha wax ka baranayo sheekh diintiisa iyo waxa weeye aqoontiisa lagu kalsoon yahay kutubta tafaasiirta ah horta quraanka waa inuu yaqaano kutubta waxa weeye tafaasiirta waa inuu waxa weeye wax ka qaato walibana lagu kalsoon yahay manhajka waxa weeye u daraasaynayna waa inuu uga dambeeyaa culimada muslimiinta ah waata kutubu tawxiid waa inuu wax ka yaqaano waa inuu qayb waxa weeye wax ka qaato waata waliba wanaagsan waxa weeye kutub alxadiid sidaas oo kale iyo usuulka kutub alxadiid iyo musalaxa sidaas oo kale kutub alfiqh oo waata ku binaysan waata daliilkiisa fiqh daliilkiisi wata iyo qawaacidka fiqhiga sidaas oo kale kutubta usul fiqhiga waa inuu wax ka yaqaano kutubta waxa weeye siyarka waa inuu wax ka yaqaano kutubu taariikh waa inuu wax ka yaqaano wa ilaahu majar masaadir lagu kalsoon yahay iyo kutub waxa weeye la yaqaano oo waata culimada muslimiinta ay jajgareeyeen oo waxa khaladka iyo saxda waxa weeye la kala hufay waa inuu waata wax ka qaataa kutubta ama kutub u dhiganta markii uu barto wuxuu qofku istaahilaa inuu waxa weeye noqdo inuu umada wax baro ama waxa weeye uu mufti noqdo oo uga jawaabo waxa weeye hadii la weydiiyo mas'ala cilmiya wallahu a'lam bisawaab الله إليك سيد الشيخ وسؤال شخص نقول بالبلارية كسابسان ضربته علمك أي سيد علمك أي أبرنيان سؤال شكوحك توحي يجي قفك سوق ري شيخ كوران ضدك الراعة خلاف كعلماء ومسائل كعلماء اسكوها يسؤون كشقية كدلنا ضدك كبد عيسية أما كنت تفسيقية فكرة إساقو أقوى وحن كلات تلين لها ننكاس horta awalan inuu fahmo waxay tahay diinta islaamka maqsadka maqaasida looga jeedo ama diinta inuu fahmo diinta islaamku waxay ka shaqaysaa say xalayba waxa weeye ama muhiimadeedu tahay san xalayba ka hadalay waa midnimo hatta waxa weeye diinu rusul ba rususho dhan ba sidaas qofka waxa weeye muslimka ana inuu ku dadaalo inuu waxa weeye masaa'ilka khilaafiga ka shaqeeyo waxa mas'ala wanaagsan ma ruqaska hatta waxa weeye zallaadka waxa weeye waxaan ka wadaa masaa'ilka zallaadka culimada qayb kamid ay ku khaldameen inuu arursadana arintaasina waa khalad waxa la rabaa inuu ka qaato masaa'ilka khilaafiga oo culimadu ay isku qabteen qowlka ula muuqda waxa weeye ama culimadu ku tilmaameen inuu yahay aqrab ila sawaab sida xaqa qowlka ugu dhow inuu marka waxa weeye culimada waxa weeye doodooda iyo waxa murankooda iyo dadka ahlu khayrka wax ka sheegooda iyo culimada hilbahoodu ay masmuumka yihiin in wax ka shaqeey waxa qofkaasi shaqo u ka dhigto waa ka waaninayna ilaahay ka baqo waxaana leenahay arintaasi sidaas ma aha diinta islaamku dhaqankeeda dadkii waxa weeye muslimiinta dhaqankii lagu yaqiinay ilaahay u toobadkeen kana har waxa weeye muranka iyo waxa weeye khilaafaadka iyo waxaad ka shaqeynayso wallahu a'lam الله إليك سؤال شكله الشيخ حسن أن ويديني إنه سائلك وهو صقر سيدان شيخ وحن كويدين يا مركي قفدي يلا قاعدنا يو أنت بدن وح قاعدته باش شميت وكذا شيء رورتي يحاسكي وحبا وحا يكيريهين أي سوق جاره ما هاد كأورانيسا أرنتاس waxaan filayaa inaan dhamaanteen wada fahamsanahay qofku hadii uu dhinto waxa weeye la dilo oo qof ama amdi ha u dilo ama khada ha u dilo ama shibul amdi haada qof waxa weeye qof ilaahay ku sababay oo dhintay magtiisa inay la mid tahay xoolaha uu ka dhintay xoolaha uu ka dhintayna qabiilku kama dhaxeeyo qoys ba iskale xoolahana waxay ka mid yihiin maktu waxay ka mid tahay qofkii xoolihii uu lahaa uu ka dhintay bay ka mid yihiin marka farqiga loo kala qaaday xoolaha magtiisa waxa weeye laga soo qaatay qabiilka
uu ka dhaxeeyaa ama oday waata xaq qaybiyo ama cid kale xaq qaybiso arintaasi waxa weeye arin sharci ma waxa loo cuskanayana waa qaanuun qabiilka ka dhaxeeya oo xeer ah xeerkaasina wuxuu ka soo horjeedaa diinta islaamka oo siisay qofka magtiisa qofka ahlkiisa nabigana sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri kullu shardin waata waxa weeye laysa fi kitaabillah shardi dhamaantii hadii uu qabiil ku heshiiyo qaabka hadda ina waanu dhaqano oo kale wixii la mid ah shardi dhamaantii oo ilaahay kitaabkiisa ka soo horjeeda fa huwa baadil marka waxa weeye arintaas waagii hore dadka Soomaalida in badan oo kamid ah dhaqankaasay waxa weeye ku dhaqmi jireen laakiin hadda waxaan filayaa inta waxa weeye saxwada islaamiga ay dalka waxa weeye Soomaaliya soo gashay qabaa'il badan baa waxa iska daayay oo waxa weeye qof walba magtiisa la siinayo qoyskii qofku ka dhintay wallahu a'lam jazakumullahu khayran su'aalahaas sheekh xasan uu inoo kaga jawaabay waxaan u gudbaynaa insha Allah ta'ala su'aalaha qaybta kale oo caawa insha Allah ta'ala inoo ga jawaabi doono sheekh Abdul Qaadir insha Allah ta'ala Nuur Faarax inta aan su'aalaha u gudbin su'aal waxay soo qortay qof haweena sheekh waxaan nahay gabdho arday ah quraanka ayaan doonaynaa inaan xifdino waana nagu adkaaday marka noo soo duceeyay gabdhihiida hadda horta gabdhaha quraan ku wada adkaaday hasla baranayna kala taga oo bal mid faa'iqada iyo mid xoogaa taqaan iyo isku qayb shaqo idinkuna dadaala ilaahayna haydin fududeeyo subhanahu wa ta'ala hadda gabdhatiin iyo hadda islaam waaweyntiin hadda ragtiinba qof kasto quraan xifdinaya ama cilmi sharci baranaya ama cilmi banaan baranaya waxay culimadu yiraahdaan Allah fududeeyo subhanahu wa ta'ala sheekha waxaan nahay haween wiilal ayaa naga tahriibay kuwa la hayo iyo kuwa la laayahana waa isugu jiraan haddaad culimada tiin noo soo duceeyay sheekh Abdul Qaadir taada ma qabsan marka waxaan leenahay wiilashaas Allah soo aymi sooma ilaahay dhulkooda ku soo celiyo meel khayrna Allah mariyo iyaga iyo shabaabka muslimiinta oo dhan ilaahayna wadankooda khayr ha ka siiyo ummadan Allah ku anfaco dariiqa wanaagsan Allah mariyo wiilashaas oo dhan shabaabka Allah inuu hagaajiyo rag iyo dumar kubadda iyo qurunka iyo fariiqada la iska dhigay iyo nooc la isku kala qaybiyay iyo waxyaabaha culimadu sheegayso xunna Allah ina ka zuuliyo shabaabkan Allah hagaajiyo insha Allah ta'ala waaye waxaan galeynaa insha Allah ta'ala su'aalaha qaybtii kale oo Sheekh Abdul Qaadir uu ka jawaabi lahaa wuxuu yiri ninkaani su'aashaani waxay toos ugu socotaa Sheekh Abdul Qaadir Nuur Faarax sidoo ku soo qoray waxa ayna soo maray maamullo culimadana waa la weydiiyay baabuurtii dawladda waxayna yiraahdeen waa in qofkii haya uu haya ila dawlad la helo marka maamulka hadda jira muxuu kaga duwan yahay maamulladii hore shukran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد انت أنا سؤالك كجوابين رنتي واحد سوين تأثيرية وعجبية محاضرة لي دكتور قصود شديدي وكور رميسي أخلاق الإسلام كا وتشدد على هيد الصحوة الإسلام كا وحبا لو صحوه مركا آدي أيا وحلايا هي aan dardaarmaya waxaan u maleynayaa inta dhageysanaysay inay aad u qancisay maxaa yeelay waxay ahayd akhlaaqda islaamka oo heer sare ah waxaana filayaa kelimad kasta oo ka mid ihi nas baa dul saaraa saad ogtihiin saa darteed inaan ka faa'iidsano baan rajaynayaa waxaanse dardaarmayaa weliba doctoorka laftiisa inuu la xifdiyo muxaadaradaas weliba balaaq intaa ka dheer ama wasaa'isha inta ka dheeraysa internetyada iyo wixii la mid ah iyo in aad loogu faafiyo ayaan codsanayaa ilaahayna waxaan ka rajaynayaa isagana miisaankiisa xasaadkana ugu daro anagana nu anfaco su-aasha haddaan u soo noqdo waxa weeye saa'ilku ma idinaan odhan jirin dowladihii maamulkii puntland oo ka horreeyey maxaan ka idhahdaa mida kan hantida dowladda ha lagu wareejiyo maxaa u kala farqiya maxaa kan u tiraahdaa ha lagu wareejiyo marka haddee saa'ilkaasi ujeeddadiisu ma aqaan anaa su-aasha ugu wajahan tahay hadduu hayo hadda ka hor meel su-aasha inta aniga la ii soo jeediyey aan iri yaan maamulka lagu wareejina idinku iska haya hadduu hayo isagaa laga doonaya anigu mar kasta waxaan qabay maamulba hadduu jiro isagaa mas-uuliyaddu saaran tahay in wixii hantidooda leedahay
in lagu wareejiyo marka waxaa loo baahan yahay intuu ka soo baxo xaska iyo yimaado yiraahdo waa taas saas iyo saatiriye maxaa hadda saawtiri wallahu a'lam بارك الله فيك شيخ عبد القادر كل هدي ورحنا ولا جوابي نقطي إن أنا نجو سؤال شدتك إن سوي ديين إن أنا نقارن علماء أوبن دقنه ولا أنا سؤال شكوحك توحى ويه شيخ واحد ترى السؤال اللي يدين ويديي وأيضا كجوابين waxa weeye su'aashaani gabdhaha gudniinka gabi ahaan ma laga deynayaa mise waa la samaynayaa gudniinka gabdhaha garan maayo wax mushkilad ka dhigay annagu haddaanu nahay culimmada in badan baanu naadinay gudniinka fircawniga ah oo cadaabka ah oo ah operatiinka lagu samaynayo gabdhaha inuu xaaraan yahay uusan bannaanayn haddana saasaanu leenahay waxaan soo jeedinaynaa gudniinka sunnaha ah oo ay tahay in la sunneeyo oo hadda la yaqaan oo dumarka dhakhaatiirta ahi ama maaragtay jooga isbitaallada si dhib yar ay u sameeyaan oo dad badan ay fahmeen kaa ayaanu soo jeedinaynaa hay-adahana waxaan leenahay ka baxa arrintaasoo noo daaya gabdhaha iyaga iyo arrimahooda oo waa yaabanahayoo wiilasha yaa la gudin ma yidhaahdaan hay-aduhu gabdhaha maxay u daba joogaan garan maayo marka waa isweydiin ma yidhaahdaan yaa wiilasha la gudi kolla dadka hadda arrimaha wada oo ajnabiga ahi iyagu raggana ma gudaan bay la tahay marka hadday saas tahay oo gudniinka baa ayna ogolayn waxaa u ekayd inay wiilashana u diidaan oo yidhahdaan yaa la gudi waxsan allahu ilayka su-aasha ku xigta wuxuu saa'ilku leeyahay sheekhow haddaan tago qabri dad siyaaranayaan oo xoolo ku dulqalanayaan xoolahaas iyo cuntadaas ma la cuni karaa xoolaha la kaxeeyo oo qabuur loo kaxeeyo oo halkaa lagu qalo inay tahay wax bidca ah oo diinta islaamkana aan meel looga helayn meel xoola loo kaxeeyo haddii xoolaha la soo gadanayoho carabta la geynahayoho yaman iyo imaaraadka iyo meelahaas iyo sacuudiga iyoho lacag la doonayo haddii xoolahaasi ganacsi baa loo wataa laakiin xoolo la kaxeeyo oo cibaado loo kaxeeyo iyo qurba ila allah saynu ognahay waxaa jira xoolaha loo kaxeeyo xaram almaki sooma garan hadiga ah ama wixii la xiriira marka meel meeshaa ka badan oo xoolo loo kaxeeyo ama qubuur xoolo loo kaxeeyo arrintaasi waxa weeye wax shariicada islaamku qabto ma aha marka xoolaha meeshaa loo kaxaynayo cibaada loola jeedayo shaki ma leh maxaa yeelay lama kaxeeyeen intaasoo mustafa lama mariyeen qabriga lama geeyeen sooma garan ka bixi maayo wamaa dubixa cala nusub ka bixi maayo ilaa nusubku waxa weeye wax uu la calaameeyayo qabuurta iyo waxlamada iyo dhagaxyo oo loogu dhowaanayo meesha khayr baa ku jira leeyahay oo xoolo inta la geeyo lagu qalhayo nusubku waa saas oo kale ma ujeedaa saa darteed xoolaha halkaa la geeyo waa bakti waana xaaraan lamana cuni karo wallahu aclam waxa weeye wuxuu leeyahay qofka su-aasha soo qoray waxaan ahay qof dumar ah waxaan ku noolahay yurub caruurta wiilasha gudniinkooda waa naloo ogol yahay gabdhahaasi nalooma ogola inaan gudanno maxaan yeelaynaa waa gudniinka waa waxaan hadda sheegayay dadkaa reer yurub maxay wiilasha hori waayaan la gudi gabdhaha maxay u daba joogaan waxaad moodaa cirdiga iyo meelaha khatarta ah bay daba joogaan iyo dumarka marka marmarka dambayse waxaad aad inoo kusii caddaanaysaa inaan dhahno daaye oo gabdhaha iyo gudniinkooda noo daaye haddii kale waxaad tirahdaa naxariista idinka tahayna wiilasha ayaan la gudin taasi waa taa gabadhaas yurub ku nool oo tiri wiilasha waa loo ogol yahay laakiin gabdhaha nalooma ogola waa run meeshaasna hadde waxa weeye dhaqankii dadkaas ay la joogto baa yaal oo waxa weeye waa loo taliya oo hadday gabadheeda sunnayso waa la ciqaabaya maxaa iyadaa doonato meeshaa tagtay sooma garan qofku marka intuu waxa noocaasa iyo ku tilaabsan see yeela waxaad yeeshaa oo keliya ka soo hijrood waajib bay kugu tahay inaad ka soo tagto dhulkaa gaalada oo waxyaabahaas aan shareecada islaamka waafaqsanayn oo taasi ka mid tahay
iyo waxyaalo kale oo ka badan aadan sheegin xoog ay kugu furayaan marka u soo noqo caalamka islaamka iyo waddanka muslimiinta tala kale male arrintaasi wallahu aclam وبارك عليك إن شاء الله تعالى سؤاشا كحكتا قفك سائلك هي وحا وليهي شيخو وحاد كورنتا دادك سيدحون وقماضية حيوانا ذا بدا كوا برقا يدرتا حيوانك بدي بربا حلاشة وأن مؤذيها هين دقاقا معها لكن وغارتا بدي بربا حرمده وحوي هنتي إلهي ونسيي وحلال وي مركز سمع دراه إن الله يوه أما الدمر قويه ما بنانا قف قدو كمار موايو وباهي وقيسه هذا هو وارسن كرا إلهي وحلاليي لكن إن الدبر قويه أما هو كمار مكرا لله يوه لبابيه سيحون له استعماله مساسي وحبنا الماء kale wuxuu yiri qofka saa'ilka ahi malaha qof raga u muuqda sheekh qof baan qabaa aruur bay ii haysaa xagga diin ahaanna waa iska liidataa aayadan ma qaadan karaa wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin maxaan sameeyaa way hadda culimada ay ka hadlayeen dulmiga lagu hayo dumarka iyo xadgudubka inuu hadda qiil u samaysanayo ama anaga fadwa nooga raadinayo maxaa yeelay wuxuu yahay xagga diin haddaa fiiriyo waa iska liidata macnahaasi waxaad arkaysaa inay qof islaama tahay baa laga fahmayaa su-aasha inay saadeeda tukato soo ma garan marka isaga un baa doonaya inuu qoftaa iska sii daayo oo ka rugdoorsado soo ma garan annagana wuxuu nooga raadinayaa inaan idhaahno sidii caruurtii waad yeeli kartaa marka waxaan leenahay ninkaa ilaahay ka cabsado xaaskiisa ha dhaqdo hadduu haatan wax kale ku darsanayo oo ziyaado ah ay u suuragal tahay isagay u taal laakiin siiqada u soo gudbinayo iyo aayadda uu daliishanayo isma laha annaga ayuu arrintaa uu maashaahid nooga dhigin marka sidaasaan ugu jawaabaynaa waxaana ka garanaynaa qaabka su-aasha xagga diintana waa iskaga liidataa arrintaasi maaha inuu diin la-aan ku nacay ee waxaan leenahay ilaahay ha ka baqo oo xaaskiisa ha dhaqdo qaala intaasay caawa barnaamijkii inuu ku dhan yahay oo su-aalihii ay culimmadu inoo ka jawaabayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro innagana cilmigaas allah inaan ku anfaco habeen dambe insha allahu barnaamijku waa inoo jiri doonaa waana su-aalo iyo jawaabo barnaamijka gebi ahaantii insha allahu tacaala ilaa waqtigaa waxaynu kaga tegaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان